adiga ayaan kula hadlayaa ma xiisaysaa maaweelada haddii aad xiisayso waa maxay sabab ugu kalifaysa inaad xiisayso maaweelada maqal aniga ayaa hadda kaaga jawaabaya sababta aad maaweelada u xiisayso waa sababta ay dadka u jecel yihiin maaweelada waa mid ay kaga cararayaan naftooda fikirka iyo murugada taasina ma noqonayso mid ay wax u tarayso balse iyaga ayaa isu qanacsiinaya in badan in ay isu ilowsiiyaan waxyaabihii ay noloshoodu la kulantay waxa laga yaabaa inaad adiga isweydiiso waa maxay maaweelada iyo waxaan laga hadlayo kaliya ma aha maaweelada mid caruurta wax kasta oo naftaada raacsiinaya hawada ilowsiinaya dhibaatada ay marayso iyo tan dambaysaba aan danaysiinayn waqtigana ay ku dheedheelayso inuu yahay mid aad wax kaga faa'iideysan karto laysna su'aali doono waqtigana kaaga dhigaya wax adigoo indhaha biriqsaday oo kaliya taa ayaa la yiraahdaa maaweelo tusaale haddaan u soo qaadano waxaa laga yaabaa adiga oo meel iskaga sheekaysanaya waqtigana kula yahay mid iska ordaya qofna uu ku kor xifdiyay buug inta oo beej ka kooban ama qof adiga oo fadhiya shaqo kugu kor aaday adiga oo fadhiyana kugu kor yimi taasina waxay ahayd maaweelada aad la qaadatay ruux kale aan u gudubno dhanka social media siiba YouTube-ka waxaan ognahay inay ku jiraan inta oo kumanaan video iyo in ka badanba oo isugu jira kuwa faa'iido leh iyo kuwa aan faa'iido lahaynba kanaalada wax laga faa'iido waxaan aragnaa inaan cidna ku foorarin ilaa in yar maahine balse waxaan aragnaa kanaalada uun maaweelada iyo dheedheesha iyo baashaalka iyo waqti lumiska inay dadka badankoodu taa uun ku maqan yihiin haddii aan si fiican u eegno u tixraacno dadka badankoodu inay waqtiga isaga luminayaan waxaan wax u taraynin waxaan xaqiiqaysanaynaa in Ilaahay been ka fog yahay ogow waqtiga adiga inuusan ku sugaynin wassalaamu calaykum